muddooyinkii dambe guud ahaanba geyiga Soomaalidu degto waxa si weyn ugu soo badanayay farsamo la xiriidha dhinaca ilkaha oo ah ilkaha ay dadku xidhaan ee biraha ay geliyaan iyadoo aan filayo in aad daawade maalin walba la kulanto dhowr qof haba ugu badnaadaan dhalinyarade kuwaasoo ilkaha ay ugu xidhan yihiin biro. barnaamijkan waxaan ku eegi doonaa mowduuc ku saabsan biraha ilkaha lagu xidho afka qalaadna loogu yeedho dental braces. waa maxay biraha ilkaha lagu xidhaa? waa su'aal isweydiinle. biraha ilkaha lagu xidhaa waa qaab ka mid ah daaweynta ilkaha waana cilmi si gooni ah ay ugu takhasusaan dhakhaatiirta ilkuhu. biraha waxaa loo xidhaa si ilkaha loo toosiyo, meelaha bannaanna loo buuxiyo, qaniiniyadana lagu saxo. qofka ilkaha xidhaya waa inuu noqdaa qof takhasus u leh maadaama ay ka dhalan karaan cillado badan haddii ay wax qaldamaan. sidoo kale ay jiraan waxyaabo badan oo la tixgeliyo inta aan biraha la xidhan, taasoo aan qaybta dambe ee mawduuceennan ku eegi doono. dhakhaatiirta ilkuhu markay shahaadada koowaad qaataan ayay 3 ilaa 4 sano sii bartaan cilmiga biro xidhista. adduunka kalena lagama ogola inuu qof aan takhasus u lahayni uu biro xidho. dhakhtarka ilkaha guud wuxuu kuu sheegi karaa inaad u baahan tahay ilka xidhis, kadibna wuxuu kuu xawilayaa dhakhtar ku takhasusay ilka xidhista. dhakhaatiirta ilkaha oo dhammina ma aha kuwa ku wada takhasusay ilka xidhista. sidee haddaba loo xidhaa biraha? hadafka biraha loo xidhaa waa in ilkaha cadaadis la saaro si booskooda loogu celiyo ama la isleekaysiiyo. waana hawl markay ugu yaraato 2 sano qaadanaysa. waa inaad dhakhtarkaaga si joogto ah ugala socotaa si mar walba ilkaha loo nadiifiyo looguna geejiyo siliga biraha isku haya. mararka qaar waxaa loo baahdaa in caag ilkaha isku celiya in lagu sii geliyo si loo sii cadaadiyo ilkaha. cadaadis saarista ilkaha lagu samaynaya waa mid qiyaas ku socota iyo xisaab. haddii kale waxaa dhici karta in ilkuhu liqliqdaan ama soo siibtaan. waxaa taasi ka daran in ilkahaagu hal dhinac u wada leexdaan, taasoo loo yaqaano midland shift, taasoo ah arrin qofka wejigiisa oo idil fool xumaynaysa. mararka qaar haddaba daawade waxaa loo baahdaa in qofka loo geliyo waxyaabo ilkaha booskooda kusii celiya loona yaqaano retainers. marka haddaba biraha iyo siliga laga furo 2 ilaa 3 sano kadib, sababtoo ah waxaa dhacda in ilkuhu booskoodii kusoo laabtaan. waxay isweydiin la haddaba maxay haddaba dhibaato keeni kartaa biro xidhistu? waxaa jirta waxyeello si caadi ah uga dhalan karta biro xidhista, ayna muhiim tahay in dhakhtarkaagu isha ku hayo si uu uga hortago. waxaana ka mid ah in ciridka dhaawac gaadho, in kaalshiyamta ilkuhu dhammaato taasoo lagu dareemi karo saliilyo aadan hore u lahaan jirin, in jiridda iligu uu dabco, in isgoysyada daanku ay waxyeello soo gaadho. waxyaabahan ma fahmi karo qof aan cilmigan soo baran, waana muhiim in isha mar walba lagu hayaa. waana sababta dhakhaatiirta birahan ku takhasustay aanay badanaa u ogolayn qof hore biro loogu soo xidhay inay xaaladiisa la wareegaan, oo waxay ku qasbaan in dhakhtarkiisii hore ay dib ugu celiyaan. dhibaatada kale ee ka dhalan karta hadduu kuu xidho ilkaha qof aan takhasus ku lahayn waa in taas kor ku xusan oo lagu daray in ilkuhu dabcaan, kadibna markii biraha laga furo ay soo daataan, in lafta daanku uu dhaawac gaadho, in ilko muhiim u ah tiirinta afkaaga in la siibo iyadoo lagu qanciyo in loo baahan yahay in la abuuro boos ay ilkuhu galaan, in ilkahaaga uu isku dheelitirnaantu ka lumaan iyo kuwo kale oo badan. waxaa muhiim ah daawade in aan isweydiino su'aal kale oo ah ilkaha xaraga ahaan ma loo xidhan karaa? badiba dhalinyarada Soomaaliyeed ee waqtigani waxaa la ogaaday inay ilkaha u xidhaan xarago. khubarada caafimaadku haddaba waxay ku taliyaan oo ay su'aashan kaga jawaabayaan maya, xaraga ahaan ilkaha biro looguma xidhan karo, waana qalad bulshada laga dhaadhiciyey. waxa kaliya oo qurux iyo xaraga ahaan loo xidhaa waa waxa loo yaqaano dental veneers, waana wax sida ilkaha u eg oo ilkaha la dul saaro ee ma aha biro ilkaha lagu dhajiyo ama silig lagu xidho. dad badani waxay isweydiiyaan su'aal ah waxa ay samayn lahayn haddii ilkahooga si khaldan loo xidho. dhakhaatiirta caafimaadku waxa ay su'aashaasi kaga jawaabayaan in ay muhiim tahay inaad raadsatid dhakhtar ilkaha ku takhasusay gaar ahaan ilka xidhista si uu talo kaaga siiyo biraha kuu xidhan iyo hadday dhib kuu keeneen, inta ay kuu xidhnaayeen iyo sida ugu fudud ee lagaaga furi karo haddii uu qalad dhacay. maadaama haddaba daawadayaal dad badani ay su'aalahaas iyo kuwo kaleba isweydiiyaan, qaarkoodna ay dhakhaatiirta u sheegeen inay u xidheen dad aan ilkaha soo baran, waxaad adeegsan kartaa tilmaamahan hoose si aad uga fogaatid ganacsatada biraha xidha. 1. maalinta ugu horeysaba ilka lama xidho ee baadhitaan ayaa la sameeyaa, kadibna in lagu qorsheeyo ayaa lagama maarmaan ah sida ilkahaaga loo xidhayo iyo haddii ilka lagaa siibayo iyo in kaleba. 2. haddii inta ilka lagu xidho kadibna lagu fasaxo oo lagu yidhaahdo 3 bilood ama 6 bilood soo laabo, taasi waa ganacsi ee hayeelin. 3. haddii aad xayeysiin ku aragtid ilko lagu xidhayo lacag go'an weliba aan la kala soocayn baahida qofka uu qaba, waa nooc ganacsi ee weligaa ka dheerow. 4. haddii uu qofka ku xidhayo ilkuhu aanu ahayn dhakhtar ilkaha ku takhasusay oo ku fogaaday cilmiga ilkaha, sababtoo ah takhasuska ilka xidhista waxaa baran kara keliya dhakhtar ilkaha hore u soo bartay. 5. haddii ilkaha lagugu xidho goob aan ahayn dhakhtar ilkood, iyaduna waa shaki kaloo weyn, sababtoo ah saxaab badan oo dhakhaatiirta la soo xidhiidhay waxa ay sheegeen in goobo farmasiyada loogu xidhay ilkaha. 6. wixii shaki kaa galo ama warbixin intaa dheer haddii aad uga baahan tahay fadlan la xidhiidh dhakhaatiirta ilkaha ku takhasustay.